asalaamu calaykum kusoo dhowow daawada mar kale iyo macluumaadkii ku saabsanaa cali xasan salaama amiirka cas. macluumaadkan sidaan bilowgii idinkugu sheegnay waa kuwa kooban oo telefishinka aljaziira laga baahiyey, waxaana tarjumay saaxiibka bila shidane axmed. waa qaybtii ugu dambeysay ee macluumaadka ku saabsan amiirka cas cali xasan salaama, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaagno buug dhammaystiran oo la mid ah midkii amiina almufti oo kale. haddaba qaybtan waxay ku bilaabanaysaa sidan: sidee ayaa loo dilay cali xasan salaama? haweeney u dhalatay dalka ingiriiska oo wadatay magac been abuur ah ayaa ku noolayd guri kasoo horjeeda dhismaha cali xasan salaama uu degan yahay. waxaa haweeneydan magaceeda uu ahaa arika maria chambers. waxay haweeneydaanay iska dhigaysay haweeney rinjiile ah oo si lacag la-aan ah ku shaqaysa. arika maria waxa ay rinjiyiintaasi ay u fududaysay inay ka shaqayso balankoonka ama qaybta sare ee guriga cali xasan salaama, waxaana taasi ay sahashay in ay hesho xogo iyo macluumaad sirdoon oo ku saabsan amiirka cas. waxay sidoo kale ay la socon jirtay dhaqdhaqaaqiisa iyada oo xogo badan gudbin jirtay mar walba, sida imaanshihiisa iyo bixitaankiisaba. waxay sidoo kale ay awoodda u yeelatay inay daraasayso oo ay sida u dhow ay ula socoto qaabka uu u dhaqmo iyo waddooyinka uu adeegsada inta badan. qorshaha iyo howlgalka lagu doonayo in lagu dilo cali xasan salaama waxaa la waday muddo dheer, balse maria waxay awoodda u lahayd inay aragto mar walba marka uu ka baxayo dhismaha uu degan yahay cali xasan salaama iyo marka uu soo gelayaba. qorshaha israa'iil ee qaarijinta cali xasan salaama wuxuu ahaa mid waqti dheer qaatay, waxaanay ugu dambayntii xog iyo macluumaad ay ka heleen falastiiniyiintii ku noolaa magaalada bayruud. waxaa dadka qaarkood laga helay xogta ay ahaayeen kuwo xubno ka ahaa ururada falastiiniyiinta. waxaana xogtii xilligaasi israa'iil ay heshay ay ahayd macluumaad ku saabsan mid la xiriira nolosha cali xasan salaama ee magaalada bayruud. bilooyin kale ayaana ay qorsheynayeen dilka cali xasan salaama iyo qaabkii uu u dhici lahaa. waxaan ku booqday gurigiisa oo ku yaala sagiyad aljanzir. wuxuu codkiisa oo hooseeyo igu weydiiyey waa maxay dhibaatada. waxaan u sheegay inaan wax ka baran lahaa haddii aan mar kale isaga aan la kulmi lahaa. waxay u muuqatay xilligaasi in qorshihii dilkiisa lasoo dhammeeyey oo aan dib loo dhigi doonin. waxaan joognay balakoonka gurigiisa. waxa uu i su'aalay maxaan samayn karaa. waxaan u sheegay inuu bedelo jadwal maalmeedkiisa nolosha, uuna sameeyo wax kasta uu awoodi karayay, maxaa yeelay ma difaaci karaynin annaga. waxa uu ii sheegay in uusan dan ka lahayn arrintaasi. sidaasi waxaa yidhi ruux si aad ugu dhow cali xasan salaama oo ka tirsanaa xisbigii PLO. laakiin cali xasan salaama waxba kama uusan bedelin qorshihiisii iyo jadwal nololeedkiisii maalmaha caadiga ahaa, waxaana uu mar kasta uu gurigiisa uu ka bixi jiray saacadda marka ay tahay 10 subaxnimo ama 4 saac. walaashiis ayaa sidoo kale ka mid ahay dadkii ka dalbaday inuu wax ka bedelo wakhtiga uu ka baxayo gurigiisa, gaadiidka uu adeegsanayo, waddooyinka iyo wakhtiga uu ugu dambayntii uu soo galayo gurigiisa, maadaama ammaankiisa ay wax ku soo kordheen. cali xasan salaama ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsanaa qof kasta in meel uun uu ku dhiman doono wakhtina uu leeyahay, laakiin waxa uu caddeeyey mar kasta inuu iska difaaci karaya koox kasta oo isku dayda in ay gurigiisa ay u soo dhacaan, ayna ku adkaan doonto helitaankiisa nolol ahaaneed. cali xasan salaama ama amiirka cas wuxuu xilligaasi uu lahaa waardiyaal badan, sidaasi daraaddeedna waxaa taasi ay adkaysay qaabkii isaga lagu heli lahaa nolol ahaan. waa musiibo kale oo ahayd in nolosha lagu qabto xilligaasi cali xasan salaama marka lala barbar dhigi karayay ilaalada uu haystay cali xasan salaama. laakiin israa'iil ayaa la sheegay inay bedeshay qorshihii ugaarsigiisa, waxaana la go'aamiyey in qarax lagu dhufto gurigiisa si ilaalada ay ugu yaraan waxyeello ay kaga soo gaarto qaraxaasi oo ay awoodi kari waayaan inay iska caabiyaan cali xasan salaama. bashiir gamayel oo ka mid ahaa xisbigii dhaqdhaqaaqa qaranka ee lubnaan ayaa aad uga walaacsanaa xaaladda cali xasan salaama ammaankiisa ku soo korortay, waxaana uu ka walaacsanaa in salaama uu ku baraarugo ama uu ku fakaro in qorshahaasi isaga uu wax ka ogaa. waxaa isoo wacay bashiir gamayel. waxa uu ii sheegay inuu rabo inuu ogaado ama inaan arkay cali xasan salaama. waxaan ugu jawaabay haa, waan arkay. si joogto ah ayuu iila soo xiriiri jiray. wuxuu ii sheegay inaan ku waaniyo si uu ugu digtoonaado nafsadiisa, uuna kaga taga abaartimentiga ama guriga uu degan yahay, uuna aado xerada. waan fahmay inay qasab tahay in bashiir wax uu dareemay ama uu wax maqlay oo weliba dhanka israa'iil uu xog uu ka helay.
maalintaas waxaan helay warqad oo ka timid Bashiir Kamaayil kuna socotay walaalkay Cali Xasan Salaama waxay uga digaysay in isaga uu ku jiro qorshe la doonayay in lagu shirqoolo maalintaasi waxayna ku waaninaysay inuu bedelo qorshe maalmeedkiisa dadkiisa maysan doonaynin in ay ka soo kiciyaan hurdada waxaana ay sugayeen ilaa inuu soo baxo si ugu dhiibaan warqadda waxa uu ku dhex furay gaarigiisii waxa uu ku akhrinayay gaariga dhexdiisa laakiin maxaa dhacay Cali Xasan Salaama intii uu waday akhrinta warqadda ayaa la sheegay in qarax xoogan uu dhacay qaar ka mid ah waardiyaashii ilaalinaya ayaa madaxyadooda waxaa laga helay meel ka baxsan goobta qarax uu ka dhacay maadaama ay haadeen ama ay duuleen Cali Xasan Salaama xilligaasi waxaa la sheegay in qayb ishiisa ka mid ah dhaawac ama firir uu ka soo gaaray laakiin markii dambe uu dhintay Nadiil Salaama waa Cali Xasan Salaama walaashiis waxa ay tiri waxaan maqlay qarax xoogan aniga oo u labisay gabadhayda Diima ma aanan filaynin in walaalkay lala eegtay qaraxa marnaba weligay ma hilmaami doono maalintaasi hooyaday iyo xaaskiisii Cali Xasan Salaama waxa ka soo burqatay ilin aniga meesha ayaan taagnaa oo aan dayayay xitaa ma aanan hadli karaynin marka aan dayay waxaan noqday baralays iga dhigay naxdinta ama shooga weligay maanan filaynin in walaalkay la xanibi doono lana dili doono waxay ahayd mid aan suurtagal ahayn sidaas waxaa tiri Nidal Salaama Cali Xasan Salaama walaashiis haddaba maxay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee Lubnaan iyo sidoo kale inta xisbiga PLO ay ka yiraahdeen geeridiisa Karim Badruddin waxa uu ahaa wasiir xubin ka ah wasiirada Lubnaan waxa uu yiri aragtidu way qaybsan tahay shakhsiyadii Salaama darteed qaarkood waxay u maleynayeen in Israa'iil ay shaqaaleysiisatay si uu ugu dhaxmilmo PLO kuwa kalena waxay yiraahdeen waxa isticmaalaya PLO si uu ugu milmo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka taas ayaana sax ah sababtoo ah wuxuu ka qayb qaatay howlgallo badan wariye Israa'iili ah oo lagu magacaabo Ronan Bergman dhankiisa waxa uu sheegay in xilligaasi uu u maleynayay in Mossad ay door weyn ay ku lahayd in la dilay Cali Xasan Salaama kadib guuldaradii ka soo gaartay Lillehammer oo ahayd maqaaxidii ku taalay dalka Norway taas oo dhalisay markii la doonayay in isaga la qaarijiyo la dilay muwaadin u dhashay dalka Morocco oo maqaayada Cavalieri ka ahaa mar labaad waxay rumaysan yihiin inuu ka qayb qaatay dhacdadii ka dhacday magaalada Munich ee dalka Jarmalka oo Israa'iiliyiin badan lagu dilay inkastoo aan taas la hubin marka saddexaadna waxaa lagu sheegay sababta loo beegsaday inay ahayd inuu ahaa shakhsiga xiriir la lahaa CIA-da Mareykanka taas oo Mossadna ay ku haysay Muriid Al-Dajani waxa uu xubin ka ahaa ururka Fatah waxaana uu saaxiib dhow la ahaa Cali Xasan Salaama waxa uu yiri Israa'iil waxay rabtay inay horumariso sumcadeeda shaqo ee sirdoonkeeda iyadoo oo dilaysa qof kasta oo ka hadla waxay doonayeen inay tusaan caalamka awoodooda ka hor shirqoolkiisii warbaahinta ayay ka soo jeediyeen Ghazi Al-Hussein isna wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa ururkii Fatah waxaana uu yiri Israa'iiliyiintu sheekooyin xitaa taxana ah ayay ka qoreen arrinta boqorka cas taas oo ay ku daabici jireen jaraa'idyada sheekooyinkaasi way dhamaadeen ka hor shirqoolkiisii inta aanan la dilin isbuuc ka hor Cali Xasan Salaama amiirka cas waxaa la dilay 22 Janaayo sanadkii 1979 Robert Ames waxa uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay safaaradda Mareykanka ee Beirut 4 sano kadib dilkii Cali Xasan Salaama 18 Abriil 1983 dhimashada halkaasi ka dhacdayna waxa ay gaaraysaa 97 ruux oo ay ku jiraan 17 ruux oo Ameerikaan ah dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin in Salaama uu u tagay si uu u siiyo xog sirdoon oo Mareykanka ah taas oo weerarka uu xigay muddo dheer kadibna haddii Ames iyo Salaama ay tageen xiriirkii Mareykanka iyo dalalka kale 40 sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa mid ka duwan kuwii hore halka ay ku eg tahay macluumaadka kooban ama documentary telefishinka Al Jazeera uu ka jeediyay ama uu ka sameeyay Cali Xasan Salaama amiirkii casa iyo doorkii uu ku lahaa howlgalladii dhulka Falastiiniyiinta waxaan u mahadcelinayaa saaxiibka bilashadana Axmed oo tarjumay documentary-gaani ka laga baahiyay telefishinka Al Jazeera waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan daawadayaashii sida joogtada ugu taxnaa macluumaadka ku saabsan Cali Xasan Salaama macluumaadyo mid kan lamid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
waxaan filayaa inaad macluumaad badan aad ka kororsateen sheekada cali xasan salaama. qaybta hoose aragtidaada iigu reeb waxyaabihii kugu cajiibsanaa inta aad la socotay macluumaadkan. waxaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaagno buugaag kale oo laga diyaariyay cali xasan salaama iyo kuwo kale oo macluumaadyo dhanka sirdoonka la xiriira. sheekooyinkan sheekooyin lamid intaan ku kulmi doono. amaana Allah.